kulantisan saaxiibayaal meel walba daafaha caalamka aad ka joogtaan ku soo dhawaada wararka Soomaalida ee YouTube channelkeena Captain K qodobada aad ku daawan doontaana waxaa kamid ah maamulka gobolka Gado oo faahfaahiyay dabka kacay diyaaradii ku dhacday degmada Doolo wararkii u dambeeyay xaaladda degmada Baraawe amaro lagu soo rogay amniga degmada Jalalaqsi iyo ciidamada dawladda oo howlgalo ka sameeyay magaalada Guraceel intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon ee wararka Soomaalida ee YouTube channelkeena Captain K fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay subscribe dhe gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela wararka iyo warbixinadeena like-na saar muuqaalkan si uu dad badan u gaaro wixii fikradaha qaybta commentiga noogu reeb mahadsanidin ayna ku bilawnay diyaaradan oo siday agab kala duwan kana ambabaxday magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ay ku gubatay garoonka diyaaradaha degmada Doolo ee gobolka Gado waxaana ka dhashay khasaare kala duwan diyaaradan oo u rarnayd hay'adda WFP ayaa waxa ay siday matooro ay leeyihiin dad shacab ah waxaana ka kacay dab xoogan taasoo sababay in diyaaraddu ay gubato goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen inuusan jirin khasaare nafeed oo ka dhashay dabka ka kacay diyaaradan oo aan la damin maadaama degmadaasi aysan lahayn gawaari dabdamis ah wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dabka ka kacay diyaaradda uu maanta saameyn ku yeeshay shaqada garoonka oo istaagtay isla markaana duulimaadyo badan oo ku degi lahaa garoonka Doolo ay baaqdeen gudoomiyaha gobolka Gado Axmed Buule Garaad ayaa sheegay in diyaaradda markii laga dajiyay agabkii ay waday kadib uu dab ka kacay isla markaana uusan ka dhalan khasaare nafeed wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in diyaaradda shil ku yimid uu sabab u noqotay dabka balse uusan jirin dab ka kacay gudaha garoonka diyaaradaha degmada Doolo ee gobolka Gado dhowr jeer oo hore ayaa diyaarado sidan oo kale waxa uu dab ka kacay xilli ay ku sugnaayeen garoomo diyaaradeed oo ku kala yaala deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan Baay iyo gobolka Shabeellaha Hoose dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Baraawe waxaa haatan degan xaaladda degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose kaasoo ay maanta ku dagaalameen ciidamada ammaanka degmadaasi iyo maleeshiya beeleed ka soo horjeeda golaha deegaanka degmadaasi dagaalka xoogiisa ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka hoyga gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdisafaana iyo hotelka Nadiira oo maanta ay ka socotay doorashada xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada Baraawe wali ma jirto khasaare nafeed oo laga soo wariyay dagaalkaasi waxaana dadka degmada ay sheegeen in haatan uusan jirin wax dagaal ah oo socda balse markasta la filan karo maadaama wali dhinacyada is hor fadhiyaan wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyaadka ay sidoo kale ka careysan yihiin nin ka tirsanaa oo ku dhintay dagaal bil ka hor ka dhacay degmadaasi balse iyadoo aan xal laga gaarin la bilaabay doorashada golaha deegaanka dhanka kalena maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa soo saaray amaro la xiriira ammaanka si loo xaqiijiyo guud ahaan amniga degmadaasi gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo amarada warbaahinta u akhriyay ayaa shacabka ugu baaqay inay isdejiyaan wuxuuna ku dhawaaqay go'aamada amniga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ka howlgala ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Djibouti ee AMISOM waxaana mararka qaar ka dhaca weeraro ay geystaan xogaga Al-Shabaab dhanka kalena ciidanka dawladda ayaa howlgalo ka sameeyay magaalada Guraceel ciidamada dawladda Soomaaliya qaybahooda kala duwan sida militariga booliska iyo nabad sugidda ayaa maanta waxay si wadajir ah howlgalo qorsheysan ugu fuliyeen degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud qaar ka mid ah bulshada ku nool gaar ahaan ganacsatada ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka uu maanta si weyn u saameeyay maadaama intiisa badan laga sameeyay wadooyinka waaweyn ee degmada Guraceel taliyaha booliska degmada Guraceel Dhame Cismaan Cali Huude ayaa sheegay in howlgalka ay ku beegsanayeen dadka aan la aqoon ee soo galay magaalada iyo gaadiidka bacda madow ee beensalka sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in shacabka aan laga ogolaan doonin gaadiidka la dhiganayo wadooyinka dhexdeeda isagoona ugu mahadceliyay sida ay amniga ula shaqeeyaan ciidamada degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa dhawaan ka dhacay dagaal qaatay 4 maalin oo xiriir ah kaasoo u dhaxeeyay ciidanka dawladda iyo kuwa Galmudug oo dhinaca iyo xogaga Ahlu Sunna walow xaaladda degmada ay degan tahay tan iyo markii ay iskaga baxeen xogaga Ahlu Sunna ugu dambeyn qaramada midoobay ayaa taageero hor leh u ballan qaaday Soomaaliya wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya sidoo kalena ah isku dubaha arrimaha bini'aadanimada
agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda oo kulanka qayb ka ahaa wafdiga ka socday qaramada midoobay ugu warbixiyay howlaha baaxadda leh wasaaradda u hayso bulshada Soomaaliyeed. Kulanka ayaa intiisa badan looga hadlay dardargelinta iyo horumarinta hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka u qaabilsan dalka iyo sidii la iskaga kaashan lahaa taageerada lagu tayeenayo dhammaan hay'adahan. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin sida ay u sii wadi lahaayeen taageerada ay ku bixiyaan horumarinta hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka. Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa ugu mahadceliyay madaxda qaramada midoobay ee Soomaaliya sida ay u garab taagan yihiin hay'adaha cadaaladda isagoona ka codsaday inay si laba jibaaraan taageeradooda. Guud ahaanna waa naga intaa wararka Soomaalida ee YouTube channelkeena Captain K. Tani war mid ka lamid ah intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.